عليكم ورحمة الله وبركاته iyo saxaafadda mudanayaal waxaan u arkaa aniga sharcigan inuu yahay sharci muhiim u ah wax soo saarka beeraha wadanka lafdhabarta nolosha dadka Soomaaliyeed waxa koob ka ah wax soo saarka beeraha iyadana waxyaabaha kor u qaadi kara waxay tahay tayadooda iyo wax soo saarkeeda iyo dhiirigelinta beeralayda Soomaaliyeedba in shuruucda ay helaan u baahan yihiin si xuquuqdooda iyo waxyaabaha kale adeegyada ay u helaan sharcigan sharci muhiim u ah weeye marka koowaad wuxuu muhiim u yahay in la helo abuur sax ah nidaamka iyo maareynta kiimikooyinka beeraha taasina waa ogtihiin shacabka Soomaaliyeed hadda waxaa dhibaato ku ah xanuuno joogto ah oo uu ka mid yahay kansarka iyo waxyaabaha kale ee soo raaca oo dhib badan shacabka Soomaaliyeed ku haya oo mar walba ku soo noqnoqda si lama filaan ah waxa keeni karana waxay tahay waxyaabaha xanuunadaas joogtada ah waa kiimikada beeraha loo isticmaalayo oo tayadooda iyo ilaalintoodaba inta ay meesha ka maqan tahay haddii marka nidaamkaasi la helo waxaa la xadeyn karaa ama la ilaalin karaa kiimikooyinka dalka soo galaya waa ogtihiin xagga kale haddaan ka eegna amnigana saameyn bay ku yeelanaysaa oo nimanka nabadiidka waa ogtihiin ay isticmaalaan tan kale qodobka kale aan isleeyahay waxaa weeye caafimaadka beeraha iyo badqabka arrimaha deegaanka iyadana muhiim buu sharcigan u yahay qodob kale waa xaqiijinta xasiloonida iyo horumarka wax soo saarka beeraha iyo tayada nafaqada iyo badqabka bulshada adduunka dowlad walba waxay xoogga saartaa in ay dalkooda u helaan cunnadaasna waxay ku imaan kartaa maaha wax dibadda laga keenay oo laga soo dhoofiyey dal walba wuxuu isaga beerta ayaa ku filnaada marka sharcigan waxaan aaminsanahay inuu muhiim u yahay beeralayda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiga ka soo shaqeeyay waxyaabo badan oo sixitaana way sameeyeen iyo toosin ah waxaan baarlamaanka ka codsan lahaynaa in ansixinteedana loogu daro sababtoo ah waa wax nolosheena saameyn ku leh weeye beeralayda Soomaaliyeed in mar walba la dhiirigeliyo oo wax soo saarkoodana ay siyaadiyaan oo wax dalka iyo dadka anfacaya marka aan u qaadano sharcigan inuu yahay sharci aad u muhiim ah shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intaba intaasaan aniga rabaa inaan xildhibaanada sharafta leh ku dhiirigeliyo guddigana waa ku amaanan yahay waxyaabaha yaryar xildhibaankii iga horeeyay uu sheegana oo saxitaana in lagu daro waa soo jeedin lahaa waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عبد الحكيم السلام عليكم ورحمة الله مدن قدومية قدامك شرفت لي حلوانة السلام عليكم